that kind of joke on TV. That's what the people want to hear. They want to hear that. يا أنا قاعد على متانا مرلبات وين إسلامي سومالي مركز توجوكتين كسر دوات ترو تي في عاوة وحنكال لنا فرق أو دحية دنا يرد متقنا سوماليا كل ألتي أنا وقت كان بحثها دنا يرد نور أمريكا especially وده كان أمريكان وده كان فرق أو دحية مركا رونانتي هداف في رسيد مركا أسولك عادي جرنا أنا قد كبر وديت elementary school ka subaxii waana la kicin jiray iskuulka anagoo 6 sano jirnaa buugteena qaadan jirnay buug bag ma qabin bas school ma jirin waa lugeyn jirnay iskuulka wuxuu noo jiraa laga yaabaa 10 miles ilaa 8 miles hadda markaas soo noqotid hal qalin ma kaa dhumi karo hal buug ma dhiman kartid laan waalidkii ma awoodi karo inuu buug ku gadaan mar kasta laakiin hadda dhalinyarada waxaa u malaysaa mataqaana buug bag qaadanaya iskuul bas qaadayo maalin kasta textbook dhimanayaan kan mataqaana waxyaalo badan oo dhimanayaan marka waxaad u malaynaysaa marka mataqaana in la kala duwan yahay marka waxaa kaloo jira dhalinyarada waddankan ku dhalatay waxay qabaan for example guriga waxaa u yaala laptop furniture ba u buuxa mataqaana korontay haystaan heat bay ku dhex jiraan winterka mataqaana samarka AC bay ku jiraan guryahan anaga AC ma lahayn heatna ma lahayn faynuuska naga dimi jiray marka mataqaana nal ma jirin saas ayta waa ku soo baranay dad badan waxaa jira madaxa oo waddanka wax ka bartay dad waxaa jira militariga galay oo saraakiila takhtarraa jira waxbarashada runtada in sheegana Soomaaliya iyo Mareykanka Soomaaliya adkayd adoo ku jira mataqaana waxyaalahaas oo awood ku masaabixi karin ayaad dadku waxay ahaayeen A student hadda internet baa jira wax kasta internet baa ka helaysaa ana waxaan xasuustaa library-ga Mareykanka tagi jiray dictionary xataa ma haysan waqtiga aniga iskuulka dhigan jiray Ingiriis baa wax lagu baran jiray dadna Talyaani wax ku baran jiray dadna Carabi ku baran jiray luqadii uma aan dhalan luqadaadi ma ahayn laakiin meeshan luqadii Mareykan baa ku dhalatay ninkii wax ka baran waayo Mareykan aroontinkan adduunyada wax ka baranayo marka waxaan leeyahay si waana ah dhalinyarada waa inay waalidkood maqlaan waa inay masaajidada waa inay diintooda ka tegin hadda ka hor Soomaaliya markaan kasoo baxay turist wala inay sheegay Soomaaliya markaan kasoo baxay nin baa iwaaniyey aabay ay saaxiib ay Allah naxariistay ninka markuu yiraahdo inta u socotaa Mareykan baa u socday adar meeshii Mareykan ugu dambeysay tagaysaa biyo adduunyada meeshii ugu dambeysay baa tagaysaa maxaa ka wadaa waa ninka wuxuu ugu yiri tubada lagu biyaha laga furto qasabada ama waxa la yiraahdaa sinkiga laba xabay leedahay mid khamra ka socoto kulaha oo khamra markaa furtid waa biyaha kulul iyo biyaha qabow midna biyo qabow ka socda mid guduudan waa biyaha kulul khamra ka socota isku taaban biir aniga inaan saaxiibanahay 6 bilood aan biyo qabow ku qubaysanin tan kulul hadaan furno waxaan ka baqaynaa inaan khamro ku qubaysano laakiin marka dambe waa baran ninkaas wuxuu naga macnaha iga waaninayay dhibaatada Mareykan ka jirto waa la socoteen waxaa arkayseen laba nin oo isku mid oo la leeyahay waa is qabaan war wax diiniyad ma wax dhaqan ma ahan laakiin normally haddaan ciyaalkeena aan u sheegin ama aanan barin wixii normal bay u qaadanayaan waalidiinta naftooda ilmahooda markaan yareerin ma dhegeysan jirin niman baa imaanaysaa sheekaysan dharbaaxa lagu dhifanayo dharbaaxa lagu leeyahay انت 5 years old 5 years old با ku toosinaya waa caruurta la maqlaa taas waan iga taa midda kale waxa laga yaabaa true story kale aan sheegaya yar baa la kaxeeyay oo la xal geeyay gaalkacyo marka la geeyay ayadiis baa loo geeyay ayayo markasta ilmaha waa jeceliin ribay u keenta special yarkan in uu listo yarka marka loo listo yarka waxa la yiraahdaa ridi mataqaana waxa la yiraahdaa saanyahala ridi saanyahala oo yar baa la yiraahdaa soo qabaaleeyay ee kan baytir inuu la saartaa yarku waa tagay sanyaala magaceedu u sheegay marka magaci sheegay ridi macnaha way qaylis markaas yiri ayay iskoolay ayay ku yeeris mariba ayay u maanis marka ilmaha naftooda af Soomaaliga waa in la baraa tan kale
mid kale aan ii sheegaya gabar baa laga celiyay dhulka waa true story ayadana marka la geliyay English baan idinku sheegaya haatan si dhalinyarada ula qabsato they took her back home gaalkaayo marka la geeyo waxaa la go and milk the goat really she can differentiate the male goat and female goat she want and grab the male goat it's not trying to milk God what true story this is a true story and she told hey there's no milk coming out marka ilmaha in loo kala sheego oo la waaniyo oo wixii jira loo sheego hadda goor true story ay sheego kale waxaa jirtay cunugii is my cousin they took him back home marka la dhaqan cilmi baa loo celiyay when they took him back home yarkii he saw his grandma smoking shisha his grandpa eating chat the girl is smoking so his friend called him and said hey yo when you gonna come back the guy said I ain't coming back man say what happened even grandma is fucking gig here that's what he said marka this joke concerns about the young children in the United States marka waxa waaye waxyaalo badan baan soo wadaa tanna waxa igu dhaliyay inaan videohan duubo ama dadka aan wacyi galiyo waxyaalaha internet ka socda internetka inaan isku caayno oo mataqaanaa waxyaalo qalad aan ku hadalno aniga ay la qaldanta in wadaadada la dhageysto maxaadarooyinka la dhageysto markasta wax fiican bay sheegaan to be honest aniga nafteyda ay jooda nin way baan carruur grandfather baan awoowana laakiin sometimes qalad iyo sax leeyma kala sheegi jirin I made a lot of mistakes back home markaan dhalinyarada ahaa wixii sax bay lahayn laakiin haddii la ii sheegi lahaa waxa waa joojin lahaa marka waa taqaanin ninka dadka dadeedoo kale guryaha iska dhagaxayn jirin we were not insane ilmahan marka haddii loo sheego leeda war waxaan waa qalad ha sameynina everybody wuu dhegaysanayaa waalidiintiis waalidkana waxaan ka codsanayaa ilmaha inaysan mataqaanaa inay dhegaystaan aysan qasbin carruurtana inay waalidkood maqlaan waana la dili jiray annaga markaan yareerayn macallimiinta dugsiga waalidkana dariskana dili jiray dhibaatada mataqaanaa aan samaynayno daraaddeed hadda goor true story kale inii sheegaya iskool hodan iskool baan dhigan jiray elementary school oo hodan ku yaalla habeenkii meesha ku cayaarnaa maraykanka dhisay nalal bay ku xireen oo tuugadii iyo shaysan usoo dhicin oo laga ilaalisho nal baana dhibay marka nalkii aan dhagax ku dhufto aniga saan mataqaanaa meesha habeenka ugu dhumaansan ugu cayaarno nin askari a qabtay station hodan u geeyey waa taqaani dad badan waa yaqaanin stationka markuu geeyey ninkii anoo la xarbinayo ma stationka duusay ninkii anoo la xarbinayo ayaa nin kala arka feero weyn sii daayo cunugan maxaa ugu dheganta cunugan wuxuu jabiyo nalkan stationkan geenayo ninkii xabas ku dhuftay ninkan kale waa ka xoog badnaa sii daayo dawladda askale war dawladdu yay taa dawladdu waa adiga dawladdu wax kale maaha dhulkan adaa askale marka haddaan maraykankan hadda waxaan ka bartay markaa ogaan lahaa nalkaas ma jabiyeen waxaan u baahannahay inaan waddanka baraskategareyno dawlad kale ma jirto dawladdu waa shabciga ninka madaxweynaha ama barnaamij aduu ku shaqeeya laakiin annagu waxaan iska laadhicinaa inuu madaxweynuhu leeyahay ama dawladdu leedahay waxyaalo badan baa idiin soo wadaa welcome to my channel waxaana kaloo ina leeyahay subscribe-ka riixa like-ka riixa comments bixiya mataqaanaa kulligan soomaaliyeed waa in islaam thank you